maalin salaasa 13 bishii labaad sida caadada waxa weeyaan shirarkii caadiga ama xog iswaraysigii caadiga ahaa si aad ogtihiin baarlamaanku waa hay'adii sharci dejinta ee dalka marka waa caadi inay u yeelato hay'adaha dawliga ah oo ay maxay waliba guddiga joogtadii inta fasaxa yahay baarlamaanku ayay u yeedhaan hay'adaha si ay madhow soo dhex dhigaan baarlamaanka maxay baarlamaan weynuhu markuu furmo shirkiisu ay fasaxa ka soo noqdaan laba arrimood baan iska wareysanaynay waxaan iska wareysanaynay uun maxay shaqadii aan soo qabanay ee qarankoo dhan soo qabtay idinkuna kamid ahaydeen sida ay ugu dhacday wanaagsanayd iyo sida ay uga soo gudubnay iyo maxaa hadda xiga shaqadeen u diyaar garoobayno oo ah shaqadii doorashada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ama wakiilada hadda maxay wakiilada iyo golihii deegaanka oo isagana u mudaysan sida maxkamaddu ay u mudaysay golaha baarlamaanka Soomaaliland ka soo baxay 27ka bisha 3aad 2019 marka shaqadaana waan u soo bandhignay heerkan marayno sidaan ugu diyaar garownay iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo oo haday tahay xisbiyadii qaranka haday tahay baarlamaankii haday tahay komishankii iyo haday tahay xukuumadda cusub wixii laga wada shaqeyn lahaa iyo sidii markii horeba aynu isla jaan qaadnay inuu wada shaqeynaynay sidii inaynu wada shaqeyno oo inu ku gaadhnana inaynu doorashadan oo run ahaantii ahna doorasho isku sidkan oo ah maxay inuu markii ugu horeysana ay tahay taana bal sidii shicib iyo dadweyne iyo xukuumad iyo commission iyo baarlamaanba looga wada shaqeyn lahaa ayaynu ku guda jirnaa shaqadii commissionkuna sideedii bay u socotaa sidii baanaynu wadnaa kale marar badan oo kalena waynu iska arki doonaa waana mahadsantiin salaasay bishuna 13 ahayd waxaan kula wada yeelanay guddiga doorashooyinka oo aan dalbanay inay noo yimaadaan anoo guddiga joogtada oo golaha wakiilada ka wakiila si wanaag way naga aqbaleen way noo yimaadeen kulankayaguna waxa ku saabsanaa wareysi guddiga doorashooyinku dhinaca maamul iyo dhinac doorashooyinba inaan xog wareysi ka helno doorashooyinkii hore dhacay akhladaadkii dhacay iyo doorashooyinka soo socda insha Allah la qabanayo Mars oo diyaar u yihiin ay qabtaan inaan xog ka helno oo ina siiyaan waxa weyn si wanaaga xog qurux badan oo ayaan keenay oo waan isfahamnay oo iska faqranay wixii aan isla meel dhignayna in dhinac walba dhinaciisa goluhuna dhinaceeda ay ka soo shaqeeyaan oo ka dadaalaan guddiga doorashooyinkana sidii hawshoodu ay awal u socotay u qaban lahayd doorashada inay ku dadaalaan ay ku socdaan bay